kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan xuska sanad guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay ka noqotay la midowgii ay la yeelatay Soomaaliya sanadkii 1960kii oo la xuso 18 May sanad walba taasi oo dadka Soomaaliland meel ay joogaanba ay si weyn u xusaan munaasabadaasi oo dhacday sanadkii 1991kii oo ay ku go'aansadeen in ay gooni u noqdaan marka la eego midnimadii Soomaaliya. barnaamijkani waa barnaamij gaar ah oo Kalsan TV uu idin soo gudbinayo waa anigoo Cabdullaahi Maxamed Cali iyo farsamada oo si toos ah barnaamijkan idinka imanayo waxa inoo hagaya Maxamed Cadaawe. sidoo kale barnaamijkani waa mid aan ugu talagalay inaan muuqaalo guud ku eegno iyo siiba xafladii ka dhacday habeenkii xalay ahaa magaalada London oo ah magaalooyinka lagu tilmaamo ama dalka Britain jaaliyadda Soomaaliland inay yihiin meelaha ay sida aadka ugu badan yihiin wadamada qurbaha. barnaamijkana sidaan hore u sheegay waa mid u khaasa Kalsan TV oo ku eegayno 18 May London iyo sidoo kalena Soomaaliland gudaheeda iyadoo meelo far badan oo laga dabaaldegay aad ku daawan doontaan warka telefishinka oo aad laga yaababa barkiin aad horeba u daawateen muuqaalo kala duwan oo ka tirsan deegaamada Soomaaliland. hase haatee aynu ku bilownaa xafladii ka dhacday habeenkii xalay ahaa magaalada London. waxaana idinku wargelinayaa meel kastoo aad joogtaanba in barnaamijkan idin soo dhaweynayo oo aad ka qayb qaadataan idinkoo xuska aad xusaysaan 18 May aad salaamo iyo hadba waxyaabaha jeceshihiin aad la qaybsataan farxadda aad ku jirtaan awgeed. aynu eegno magaalada London waxaa ka dhacay xaflad ay soo qabanqaabiyeen ururka marka la soo gaabiyo loo yaqaano SSUK oo isagu ah ururka jaaliyadda Soomaaliland ee dalkan Britain kaasi oo qabanqaabadiisu ay ka dhacday xaafadda Eastham ee bariga magaalada London. waxaana ka soo qayb galay xafladaasi dadweyne aad u fara badan oo iyagu luxayay calanka Soomaaliland. sidoo kalena waxaa kala soo qayb galay madax ajaanib ah oo kamid ah madaxda dalkan Britain oo ay kamid yihiin qaar ka tirsan golayaasha baarlamaanka ee dalkan Britain oo khudbada ka jeediyay habeenkii xalay ahaa. xafladan oo ahayd mid si weyn la iskugu arkay oo sida la ii sheegana ay ka soo qayb galeen in ka badan 1,000 qof oo ay ugu tala galeen goobtu inay noqoto goob si weyn u camiranta ayaa waxaa xafladaasi hadal ka jeediyay xubno kala duwan oo ay kamid yihiin xubno baarlamaanka Soomaaliland oo ku sugan dalkan Britain, wakiilka Soomaaliland ee dalkan Britain Cali Aadan Cawaale iyo sidoo kalena musharaxa xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen iyo xubnaha iyagu madax ka ah xisbiyada qaranka Soomaaliland wakiiladooda dalkan Britain. waxaana halkaasi lagaga hadlay taariikhdii 60kii ilaa intii u dhaxaysay sanadkii 1991kii waxaana xafladaasi ahayd mid si weyn la iskugu arkay. marka ugu horeysa hadaba aynu eegno iyadoo xafladan si kooban u soo qaadan doono waxaynu eegi doonaa xisbiyada qaranka Soomaaliland oo iyagu kamid ah kuwii meeshaasi ka hadlay ayaa hadaladii ay ka jeediyeen tiyo ujeedada ugu muhiimsan ay ahayd in ay muujiyaan sida ay ugu midaysan yihiin wadajirkooda 18 May. bal aynu eegno muuqaalka markii lagu soo dhaweeyay madaxda xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland oo iyagu halkaasi hadallo kooban ka jeediyay iyadoo xafladuna sidoo kale ay ahayd mid ka sokow dadka halkaasi isugu yimid ay hayeen qaar ay ka heeseen fanaaniin kala duwan oo muuqaalkoodana aan idin tusi doono. waatan saada fanaaniintii ka heestay oo ay kamid ahayd fanaanada Nimco Yaasiin iyo sidoo kale fanaaniin fara badan oo iyagu goobtaasi ka heesay oo ka qaaday heeso Soomaaliland ay ku xusayaan munaasabadeeda habeenkii xalay magaalada London. waxaana ay ahayd xaflad si weyn ay uga soo qayb galeen dad kala duwan oo iyagu ka kala yimid magaalada London iyo dalkan Britain magaalooyinkooda kala duwan oo ay halkaasi ku xuseen 18 May habeenkii xalay ahaa. markan aynu eegno hadaba muuqaalka waxaad daawanaysaan waa xafladii 18 May ee magaalada London. muuqaalkaasi wuxuu kamid yahay muuqaaladii aan idin soo duubnay waa dadka oo u damaashaaday 18 May. waxaa laga yaabaa barnaamijkan waanu ku bilownay muuqaalka oo ahaa muuqaal heesta calanka Soomaaliland oo ay dadku ulxayaan caalamada. waxa aan hadaba iminka tusi doonaa muuqaalkii xisbiyada oo iyaguna
ka mid ahaa kuwii ka hadlay goobta iyadoo sidoo kalena aan idiin soo wadno khudbaddii uu maanta 18 May uu ka jeediyey madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaayo khudbaddaasi oo kaga hadlay dhinacyo kala duwan oo la xidhiidha arrimaha Somaliland siiba xukuumaddiisa iyo waxyaabihii ay qabatay iyo waxa ay hiigsanayso sidoo kalena waxa uu ka hadlay arrimaha doorashada Somaliland ee iyaduna arrinteedu taagan tahay oo uu tilmaamay in aanu isagu dan ka lahayn muddo loo kordhiyo hase ahaatee uu ku tilmaamay in ay ahayd mid duruufta keentay waxaanu soo qaadan doonaa khudbaddii madaxweynaha iyo sidoo kalena waxaanu idiin soo gudbin doonaa khudbado yaroo kooban waxaase naga xusid mudan waxaa isaguna diyaar ku ah barnaamij uu si toosa inoogu soo gudbin doono Cabdiqani Xasan Cilmi oo ah wariyahayaga magaalada Hargeysa oo inoo soo gudbinaya warbixin koobaysa qaabkii uu u dhacay damaashaadka Somaliland ee magaalada Hargeysa oo ay isugu soo baxeen dadweyne fara badan iyo dabcan laamaha kala duwan ee Somaliland iyo ciidamada markana aynu ku soo noqono London magaalada London aynu ku soo noqono waa xisbiyada ayaan idin soo gudbin doonaa tiyo ugu horeystii uu hadlayo gudoomiyaha urur xisbiga wadani ee qaaradda Yurub shacabka Soomaaliyeed beel joogaan gudaha dibadda waxaan leeyahay happy May waxaan doonayaa halka in faatixada u marino dadkii ku dhintay oo dhiigooda u horay Somaliland Ilaahay u naxariisto intii ku naafooday Ilaahayna caafimaad siiyo markastaan xusno dadkeennii karaamadoodii iyo dhiigooda ku dhintay halka weyn xusnaa xafladaanay noqon وين نوغانا دتك بيقول أوهر إن شاء الله تعالى أنت كبعد هبيتي مي ما تويلت شغان تشبديو دواديه واسايسنا قعمها والله أو بقنا سوماليلاند السلام عليكم ورحمة الله waxaan doonayaa imankan inaan ku soo dhaweeyo xisbiga qadiimka xisbiga aynu aabayo hooyaba ka dhigano waa xisbiga وعوديا ugu qadiimsanaada la bilowday xisbada iyo imanka inta jirta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله وإله مهدي مانتا إنه نتبال تقنوها فريا لباتن قوردي 18 May oo ah maalinteenu la soo noqonay xornimadeena taas waxay tusaysaa in qiimaha ay naga taagan yahay qarankeenu sidaynu isugu duubnahay maalintan oo kale farxadeena u muujino meel kastaynu joognaba markaa waxaa muhiim ah inay isku duubnideenaasu noqoto mid joogta oo waarta mar kastaba xisbiyo waynu kala nahay siyaasadda waynu ku kala duwannahay barnaamijyada waynu ku kala duwannahay laakiin hadafkeenu waa qarannimada Somaliland oo la ilaaliyo oo aynu mar kastaba inagoo isku duuban cadowgeena meel uga soo wada jeesano ayaa muhiim ah dhammaan reer Somaliland meel joogaanba horta waxaan leeyahay ciid wanaagsan waana salaamayaa gaar ahaan madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo madaxda xisbiyada gudoomiyaasha dhammaantoodba waan salaamayaa mar labaad waxaan leeyahay ciid wanaagsan isku duubnida aynu ku wadno guusha inoo hadhay waxa weeyaan ixtiraaf inaynu helno taana nin waliba halkiisa kaambeynka ka galo taasay ku imanaysaa inagoo isku tuuban inaynu nin waliba halkiisa ka shaqeeyo marka aad baad mahadsantihiin aad baan idin salaamayaa guul baan inoo rajaynayaa insha Allah assalaamu calaykum aad iyo aad buu mahadsan yahay waa gudoomiyaha xisbiga wuxuud ee dalkan UK waxaan doonayaa haddaba inaan ku soo dhaweeyo aabaha iyo hooyada maanta dalka xukuma waxa weeye xisbiga kulmiye ayaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo xariir oo aan leeyahay xariir ku soo dhawow adiguna kelmadaadii dadkii aad u talinaysay baa ku hor taagan maxaad oran lahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أدان إذا سلام يا تذكر شرفت له قيمة له قروح دبلن هاجي أول يا نبي ربنا حفلتنا أفرل وقت الجورة دي كشورك تي بارك في رجل واقعي شباب اللان جونس يسوتها كذا هذه أدان إذا هذا غيا أنت أمرك لقول بتو وحاء وفرحة وكتوين
tiimeeyadii hore aynu u dabaan tegnay maanta saddexdii xisbi qaran oo mar soo wada istaagay oo meel wada istaagay oo af isku mida ku hadlaya oo midnimo wada muujinaya hadalkan ka horteed waxaan u baxnay dibadda waxaanan hawada u dirnay baluuris ayaanu hawada u dirnay annagoo dhan oo u dhan muujinaynana midnimada xisbida somalilan ay maanta markay maanta oo kale tahay ay meel ka wada taagan yihiin sidii saaxiibaday xisbiga wadani iyo cuddo ay sheegeen maanta oo kale ma aha maalin siyaasad laga doodo maalin siyaasad la iskaga hor yimaado maalin faraq iyo kala fikir yimaado ma aha waa maalin isku wada mid leeyahay sida loo wada fikirayo marka waxaan xisbiyada qaranka ku hambalyaynayaa kaalinta ay wada istaageen ay muujiyeen waxaanan filayaa insha allahu tacaala wixii maanta ka dambeeya maalin walba inaanu sidan annagoo gamca isku haysannaa idin hor iman doono haddii laa yidhaah intaa markan ka gudbo waxaan aad iyo aad iyagana u salaamayaa madaxweynaha qaranka somalilan maxamed axmed maxamuud silaayo madaxweyne xugeenka golayaasheenna qaranka ah xisbiyada shacabka reer somalilan meelay joogaanba guda iyo dibadda wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan waa tahay waxaad daawanaysaa barnaamijka gaarka ah ee 18 May iyadoo maanta ay ku beegan tahay sanad guuridii 24aad ee guurisutaaga Jamhuuriyadda Somaliland waa barnaamijkan aan ugu talagalay in aanu ku eegno xafladii lagu qabtay London iyo dabcan magaalada Hargeysa iminkana waxaanu dib u eegi doonaa xafladii xalay lagu qabtay magaalada London oo sidoo kalena uu ka hadlay musharaxa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Somaliland Jamaal Cali Xuseen oo ka yimid dhinaca waqooyiga America si uu jaaliyadda Somaliland ee dalkan Britain uu kala qayb galo iyadoo xisbiyada iyo dawladduba ay goobo kala duwan ay kala qayb galeen jaaliyadaha Somaliland meel ay joogaanba waatan hadalkii uu ka jeediyey Jamaal Cali Xuseen habeenkii xalay ahaa iyadoo uu kaga hadlay arrintan ay qarannimadooda loo soo noqdeen muddo 24 sannadood ka hor shacbiga Somaliland adigoo ku hadlaya guud ahaan madaxda Somaliland oo dhan maanta halkan jooga waxaan u maleynayaa anigu waxaan matalayaa madaxda Somaliland hadday noqoto dawlad hadday noqoto xisbiyo hadday noqoto golayaal hadday noqoto wasiiro anigoo ka wakiila maanta caaw waxaan idin leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay dhammaan shacbiga degan ee magaalada London iyadoo halkan ay ila joogaan madaxda xisbiga Ucud laakiin waxa aan u taaganahay caawa qarannimada Somaliland sida aan idin sheegay anigoo ka wakiila dhammaan madaxda Somaliland oo dhan oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaan idin leeyahay hambalyo idin leeyahay waa habeen ay Somaliland ay midowday weeyaan waa habeen shacbiga Somaliland ay ku faanaan qarannimadoodii ay la soo noqdeen muddo 24 sannadood ka hor ah waxaan ogahay in shacbiga Somaliland maalintay noqotoba inay ka midhodhalin doonaan qarannimadooda iyo midnimadooda oo aynu gaari doono hankii aynu lahayn waxaan ku faanayaa oo aan leeyahay Somaliland dimuqraadiyaddii ay gaadhay waa qaran madax bannaan oo ay dadku si xorriyada u hadli karaan oo ay si xorriyada afkaartooda u weeyeysan karaan taasi kama jirto waddamo badan oo caalamka ka mid ah oo markiiba qofka la tooganayo ama xabad loola tegayo marka waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay caawa farxad ku ciida shacbiga Somaliland meel kastoo ay joogaanna waan hambalyaynayaa waa tahay barnaamijka aad si toos ah u daawanaysaan waa barnaamij si gaar ah ugu talagalay 18 May waxaana hadda daawanayseen Jamaal Cali Xuseen oo ah musharaxa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Somaliland oo isagoo habeenkii xalay kala qayb galay jaaliyadda Somaliland ee dalkan Britain xafladii ay ku qabteen magaaladan intaasi kuma ka hase yaatee maanta sidoo kalena goordhaweyd warkii ugu dambeeyayna soo gaaray ee la xidhiidha arrimahan 18 May waxaa urur la yiraahdo waa sida uu lagu soo gaarsiiyay la yiraahdo Somaliland Action Group oo iyagu ah koox dhalinyaro oo iyagu isku abaabulay sidii ay qadiyada Somaliland uga shaqeyn lahaayeen ayaa waxa iyagu uu helinayo wakiilka Somaliland ee dalka Britain Ali Aadan Cawaale iyo sidoo kale aqoonyahan
maxamed warsame boos ayaa waxa ay geeyeen xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkan Britain waxaa loo yaqaano petition ama qoraallo ay ku dalbanayaan in qadiyadda Somaliland dhinaca diblomaasiyadda ay aad u eegaan. sawirkan muuqaalkiisa aad halkaasi ka aragtaan ayuu waxa weeyaan waa Downing Street-ka magaalada London. waa xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dalkan Britain oo ay maanta geeyeen xidhmo qoraal ah oo saxiixa oo jaaliyadda ka yimid oo ay ku dalbanayaan in siyaasadda dhinaca aqoonsiga Somaliland ay dowladda Britain wax ka bedesho, taasi oo ay u ololeynayaan dadka reer Somaliland in 18 May aanay noqon oo kaliya damaashaad, hase ahaatee ay sidoo kalena ay ka dhigaan mid ay ugu talagaleen in dhinaca dowladaha iyo diblomaasiyaddana ay gaarsiiyaan. waa tahay taasi waa dhinaca Downing Street iyo magaalada London oo ay jaaliyadda qaar ka mida oo iyagu iskood isku abaabulay ay u ololeynayaan. haddaynu dib u eegno haddaba, maadaama aynaan soo koobi karayn xafladaha lagu qabtay way fara badan yihiin, magaalooyin fara badan ayaa lagu qabtay oo qaaradda Yuruba, dalka Jarmalka, Holland, ma sheegi karno ilaa iyo dhinaca wadamada laysku yidhaahdo Scandinavian-ka oo ay uga yimaadeenba kooxo ladbaadega jaaliyadda iyo sidoo kale dhinaca waqooyiga Amerika. hase ahaatee marka waxaan u kici doonaa dhinaca iyo geeska Afrika iyo caasimadda Somaliland ee Hargeysa oo warbixin uu inooga hayo wariyahayaga Cabdiqani Xasan Cilmi oo ku eegaya qaabkii ay u dhacaysay damaashaadkii maanta lagu qabtay Hargeysa. waana tan. كورة ما تدرين كاي والله تدرين كيف أدي هي فكورة واحد سكسو حرري وإحنا كنت لك جديد سوماليلاند خلاص كسر نقشة حرمي سوماليلاند كسر قلب كل سجاشن كي أول لقيت شو أفر يلا بعتن سنة مركي لقيت شو حلي جاي سوماليلاند شاكتي إن الجار كان نقطي ودي كل سكورين شيء سوماليا ما قاعد هدي يقول على سيد وحسكي مساعدة كقيب قشة وحسكي لو أنا كقيب كلا أجيد بعد ما حسنتها waxay iminka barbarkayga taagan maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Cabdiraxmaan Sawteelko waxaan doonayaa ugu horeyntii bal inaan weydiiyo dareenkiisa ku aadan maanta yaa ay dhimay dareenkaygu aad buu farxad badan yahay waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan shacbiga Somaliland meel kasta joogaan ciid wanaagsan ku ciida waan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr dawladda Soomaaliya maanta sidee wax u abaabushay runtii abaabulkan ugu badan wadadan iyo xalay leerarka saada ka seeriyo waxa soo dhan dawladda wasa ka shaqeynaysaa maantana waxay kaga qayb gelaysaa degmooyinkeedii iyo gaadiidkeedii muxuu ahaa cagafyadeedii debdemiskeedii waxa soo dhan maanta kaga qayb gelaynaa aad iyo aad baad mahadsantahay maayar السلام عليكم. أهلا وسهلا ولا. مقعة ولا. مقعة محمد شيخ محمد. محمد بالكور ما تدرين كاكا. درين كاكا دل ما قياس كرا. هي. وحن كعبرك كراون درين كاكا واحد بدل ما كعبريا. وايا. ما أنت ما حسوس منا. وايا. وما أنت نقارن مضى يدد مضى يشرفت يعزيك. أنت والله صنع والله. ما أنت هو مالن وجد كوب حي دوح يديك مشاهد كوب حي. وحن سجارة وهم بليانية. waxaan si tiirayeen oo hambalyeynaya waxaan si fog u hambalyeynaya mujaahidiintii agoontii hooyadii goblantay qarannimadan maanta calankani kumuu iman hadiyad kumuu iman wax kale wuxuu ku yimid waa dhiig iyo dhuux weyn هلا إلى شرط لذي مركا هلا إلى شرط أهلا ما سنتي هلا عبولي بقى أهلا ما سنتي محمد أهلا وسهلا ولا مقعة عبد الحديق وحسقي مساعدة كغيب قشوا حسقي أفر لا تنال بيلاتنا لا بحسن بكام مكان كور ما أنت درين كاجا هذه يدونك سين هذه يدبنا نقول سلامين أهلا وسهلا اسكورة سعيد الحمد لله مقعة قصة دحان عينا أحمد إسماعيل عينا بالكور ما أنت درين كاجا والله درين كذا ما أنت عيد يعرفون بلا مت عيد يعرف بلا مت حسكن ورا محوك قد وين قد وين هاي
كسرون كسر فدان ما ينافع عدون هاي الشعب السومالي أنا نقولين كون واحد هاي نافع سيدا دي كاركا كنت ماده ولا اسمه درنته ماي dadka naafada markii ciidanka booliiska markay ka xalka Soomaaliya iyaga laftooda gaarkii ay u soo jeedeen xalay oo dhan noo qiimeeyeen ku soo dhaafay aad baan ku salaamin caynaan munaasabada 18 May oo ku aastaysan maalintii xornimada Soomaaliland ama Soomaaliland ama baan idhaahday madaxbannaanida Soomaaliland ay laga soo noqday wadanka isku oran jiray Soomaaliya ay maraysaa sanad guuradii 24aad ee lagu xuso waxaana maanta isku waxay dadweyne tiro badan gaadiidka gaashaaman ciidamada saraakiisha ciidamada iyo ciidamada booliska gaardis ku mari doona madaxtooyada horteeda iyo wadada madaxtooyada hormarta iyo guud ahaanba inta badan shacbweynaha Soomaaliland oo iyaguna muujinaya dareenkooda ku aadan sida ay u qiimeynayaan munaasabada 18 May haddii aan dhinac calamada iminka hadda wadayaal halka arkaysaan ee saraakiisha ciidamadu ay halka la taagayeen calanka dhinacan ugu xiga waa calanka ciidanka qaranka Soomaaliland ama ciidamada militariga calanka ku sii xiga waa calanka ciidanka booliska calanka ku sii xiga waa calanka ciidanka asluubta calanka ku sii xiga waa calanka ciidanka ilaalada xeebaha calanka koonaha ugu sii sheexigana waa calanka ciidanka immigrationka amaba ciidanka iyagoo darajooyinkoodu ay yihiin isku jiraan waxaana ay markaa gaardis ku mari doonaan sida ciidanka laba ay gaardiska ku marayaan madaxtooyada Soomaaliland haddii aynu soo aragnay saraakiisha ama ragga ciidanka ee ciidanka asluubta kuwana waa haweenka ciidanka asluubta waana ciidamo ka tirsan ciidanka asluubta ee Soomaaliland gaashaanle soo lama fiina iminka waxaan barbar taaganay laba gaashaanle oo kamid ah gaashaanlayaasha ciidanka booliska Soomaaliland balga waran gaashaanle maanta sidaad ugu diyaar garowday munaasabada 18 May adigoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waxa weeye gaashaanle Cabdi Xuseen Daahir waxaana taliyeeyay qaybta bariga Hargeysa alxamdulillah aad iyo aad baa loogu diyaar garoobay waad arkaysaa ciidamada noocyada kala duwan ee maraya waxa weeye si fiican oo nabadgelyo ay u dhacaysaa hawshaas ilaahay idinkiisa idinku rajeynaa insha Allah ta'ala xeebaha iyo saldhigyada uga diyaar garoobay inuu ka qayb qaato aad baan ku salaaminaa kabtan Umar Cabdille oo ah kabtanka wada ururkan ka midaanayo gaadiidka ciidamada dabdabiska ee magaalada Hargeysa wax iyaga ku dhowdina ay mari doonaan dhoolatuska qalabka way aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha Kalson TV magaalada Hargeysa waa Cabdiqani Xasan Cilmi oo waa dawlad ku magac dheer aad ayuu ugu mahadsan yahay warbixintaasi oo waliba soo gaabinay oo intaasi ku dhamayn hase yaatee waxaad ka daawan doontaan qaybta YouTube-ka ee Kalson TV oo ah kalsontv.com waad ka heli doontaan dhinaca YouTube-ka hase yaatee barnaamijku waa barnaamij aan ugu talagalay inaynu dhinac walba ka eegno waxaa sidoo kale ku jira in aad idinka intiina daawanaysa barnaamijka oo aad ka qayb qaadataan haddii aad jeceshihiin inaad halkan salaamo iyo hadba waxyaabihii xafladaha aad samayseen aad ka sheegaysaanba khadka telefoonka ayaan idiin furayaa barnaamijkuna waa barnaamijkii 18 May waxaanu jecel lahay inuu noqdo barnaamij si fiican noogu dhaca oo cid walba ay si wanaagsan uga bogato iyadoo inoo soo socdo intan kuma eeka barnaamijkii waxay inagu soo maqan khudbadii uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo oo kaga hadlay dhinacyo badan oo la xidhiidha siyaasadda uu dalka ku maamulayo xisbigiisu iyo ta gobolka iyo ta caalamkaba khadka telefoonka ayaan markan u yeedhayaa qofka ugu horeeya nasiibka u yeeshay inuu soo galo ayaan soo dhaweynayaa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso ayaad ku bilaabi doontaa arrintuna barnaamijkuna waxa uu ku kooban yahay oo kaliya 18 May kusoo dhawaan kulay magacaaga Hello, assalamu alaykum. soo dhawo walaalo alaykum asalaam wa rahmatullahi waan dhawahay ma sha Allah maanta waa maalin weyn oo ciidii Soomaaliland ma sha Allah marka ugu horeysa adigoo barnaamijka soo jeedinayaan ku salaamaya marka labaad ummadda Soomaaliland meel kasta joogto yar iyo weyn madax iyo mijo kulli waa wada salaamaya waa maalin farxadeed shucuurtaydu way kacsantahay ma sha Allah
ummadda Somaliland waxaan insha Allah ugu rajaynayaa inay isku duubni iyo bashbash iyo barwaaqo maanta maalinteeda kale ay ku ciidaan. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أد بعد ما حسنت هاي مقعاقي نكستون أن مقلين لكن وان كواجا ما حد نقينا وإحنا نقولنا هاي سنة جرو نكسن قف كحجة مقعاقي يهلك هتقصوا هذا ليس وستيدي تبان كمي ومالين تلفتي دي بيكون بيجن تاي حالي دتك قارب الدبالدقي قارب ولي أن دبالدقين ودونية إني ديمودكتان حسها يوقبان إن أنا مالين تلكتجين سودو مقعاقي يهلك هتقصوا هذا ليسو qofkaasi sida dareentay waa ka go'ay hase yaatee barnaamijka aynu ku guda jirnaa waa barnaamij gaar ah oo 18 May haddii aad hadda nagu soo biirtay waxaanu ku soo qaadanay qaybo ka mid ah magaalada London oo habeenkii xalay si weyn looga xusay iyo sidoo kalena waxaanu ku soo qaadanay warbixin aanu si kooban u soo qaadanay oo la xidhiidha dadkii magaalada Hargeysa u diyaar garoobay waliba intaas waxa dheer iyadoo warka Kelson TV-na qaybo badan oo ka mid ay ku jiraan muuqaalo iyo warbixino ka hadlaya min ilaa bari ilaa galbeed sidii Somaliland looga dabaaldegay waxaa xusid mudan in magaalooyin kala duwan oo dibadahana laga dabaaldegay magacaaga iyo khadka telefoonkood ku jirto adigoo ku bilaabay magacaaga halka soo hadlayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لو وحن آدي السلام يا أديكو برنامج كذا دهينية إيه كلسن TV. واي سوري ولا. وحن ما أنت هم بليه بلادن ولا سوكو بكرنو دريا دمان Somaliland. وات هاي سوري. ذلك يدي بدأ يعني ور يكونوا يجين ما أنت أو أفرحت ما أنت أو أمالين عن أفرح سنة هاي دمان شعب غير Somaliland وفرح سنيهين. دمان فاملي جا سلام يا دمان تذكر دبا وذا سلام يعني قلت على ذنبان هاي وكسر هالليسة لندن. واتاي mahadsan Allah waxaan rajeynayaa inaad aad baad u mahadsantahay inaad xalayna joogtaa laga yaabaa xafladii ama aad kala socoto barnaamijkan ku deeqay waxaad barnaamijkan sidoo kale ka daawan kartaan oo uu ka socdaa kelsontv.com iyadoo sidoo kalena wixii idin dhaafay aad dib uga daawan doontaan oo dib u soo gelin doono internetka saayta barnaamijku waa barnaamij si toos ah u baxaya khadka telefoonka qofka ku jira iyo magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso. Hello, assalamu alaykum magacaygu wax weeyaan guuleed. Way guuleed soo dhawow. حاجات كسو هادلسا waxaan ka soo hadlayaa London waxaan rabaa inaan salaamo dhalinyarta Somaliland iyo cid kastoo Somaliland garanaysa oo ku nool oo hada sheegatana way aad baad u mahadsantahay guuleed statementkii ma ka qayb gashay oo ka baxan meelaya aad buu mahadsan yahay guuleed qofka kale ee xiga khadku telefoonku iska soo daba dhacaya waxaan idin xusuusinayaa عليكم السلام ورحمة الله سودو برنامج كان خاص كا كلسن تي في وقت لقى الاستيد يبي تبان كمي ولا الوان كدوا ما قاعد يقول الله علي واي حاجات ولا كسو هادلسا شرمني ما كسو هادلا يا سودو سيدي شرمني وقيب قادتين حفلة والله نيوز ادي انا شنو تبان كي بيش نو بلو بطي الا امك نو في عمر وقيب قادن واتي يا تعيشنا سلامته واحد سلامه يا دمان مدحدا Somaliland salaanta horta kooriyar baan doonaya inaan gacan ku siiyo way waxaan u sheegayaa ummadda reer Somaliland meel kasta joogaan inay qarannimada Somaliland adkeeyaan waayo qarannimadu wax badan ayaynu u joogtaa ma garatay waatay waxa weeye anigu waxaan raggii meesha iyagoo yaryar wadanka ku soo koray ee dhibaatada ku dhacday way imikana ku dhalay ee ku guursaday waatay marka waxa weeye anigu weligay ma arag calan Soomaaliya isagoo meelaha ka taagtaagan baan arkaa laakiin lacag Soomaaliyana ma xun waatay aad baad mahadsan tahay statementka maybaynu ka hadlaynaa waad mahadsan tahay ku soo dhawaada barnaamijkan intii nimka nagu soo biirtay aan hore u la socon barnaamijkan oo mid si toos ah idinka imanaya Kelson TV iyadoo sidoo kalena ay nagala socdaan dhinaca internetka oo kelsontv.com qof kale ayaa khadka ku jira magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso oo mahadsan سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. حكيت كسؤال لسه؟ waxaan ka soo hadlayaa Kenya dalka Nairobi. سودو نيروبي إلا جيس كي أفريقيا كسؤال لسه استوديو كالسن تي في لندن ده كسودو وأنا كلنا هاي وقت كهار لسه. waan soo dhawaaday waxaan ka dhigayaa farxadeeda ma garanayso aan dabaaldegi leeyahay kimiga. way waxaan leenahay Somaliland ha reebto way marka
ويا تشاشينا سلامتو واي waan ka xumahay waxdama khadka iyo telefoonka ka xumaaday ninka geeska Afrika siiba caasimada dalka Kenya ka soo hadlaya waa barnaamij Kalson TV uu talagalay 18 May oo aynu maanta ku jirno isla markaasina damaashaadkiisu meelo kala duwan hore uga dhacay maalmihiina soo dhaafay qaar imika uu ka socdo iyo kuwo la sugayaba ku soo dhawow aan ku leeyahay marna waxaan soo deynayaa barnaamijka khudbadii madaxweynaha ayaan jecelahay inaynu soo qaadano waxa aan markan ku soo dhaweynayaa daawado kale oo khadka telefoonka ku jira magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso hello soo dhawow walaalo magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso isfax baa la yidhaha lasar baan ka hadlayaa waaye ifrax waa maxay fariintaada haysa maanta ama farxaddaas leedahay barnaamijkeeda uu talagalay anigu waxaan u hambalay 17 gobolada Sool iyo Sanaag ee qashinqubka waay waan ka xumahay in lagugu jiro ma jeclayn laakiin farsamayaqaanka ayaa go'aamiyay inuu kugu jiro laakiin waa qof maalin buu dabaaldegaya marka aad baad mahadsan tahay barnaamijka arokaan ugu talagalay inuu soo qaadan doona khadka telefoonka ayaa kale ku jira aniga ku jira magacaaga iyo halka ka soo hadlayso waa aad iyo aad baan ku salaamaya adiga iyo Kalson TV ba soo dhawaada waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Somaliland meel kasta ay joogaan waay madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan shacabka reer Somaliland aad baan u hambalyeynaya intaa kadib saaxiib Kalson maanta deedu ku live meedan hayn waxa weeyaan kana barnaamijkana live waa isku mid mar walba live waa goorta yimaado waxa weeyaan kulli jadwal baa jira farsama wax walba farsamo ku xiran yihiin imika waa inaga live ku jirna waana khadka telefoonka aad soo gashay wadubis maaha aad baad mahadsan tahay yaad salaami lahayd ugu dambaystii waxaan jeclahay inaan galo khudbadii madaxweyne Axmed Maxamed Siiraan iyo maanta uu jeediyay oo runtii ah khudbad aad u muhiim ah inaan baldhigeysano dhinacyo badan oo kaga hadlayna inuu dhuuxno oo laga yaabo aan saameyn oo kaliya dadka reer Somaliland laakiin saameeya bulshada kale geeska Afrika khudbadaas ayaan soo qaadan doonaa farsamayaqaanku haddii cadaawi ii soo gudbiyo aynu u gudubnay iminkana khudbadii uu ka jeediyey munaasabadii 18 May ee subaxnimadii saaka dhinaca geeska Afrika uu madaxweyne Axmed Maxamed Siiraan uu ka jeediyey taas ayaynu dhageysan doonaa wixii waqti inoogu soo hadhay barnaamijkana waynu isla eegi doonaa marka ugu horeysa daawasho wanaagsan barnaamijkan Kalson TV idinku talagalay 18 May oo haatana ay idinku soo maqan tahay khudbadii Axmed Maxamed Siiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والله وهورين وحن شعبي وينها جمهورية Somaliland ugu hambalyeynaya meel ay joogaan ba 24 gurida ka soo wareegtay xuska munaasabada qaranka ee 18 May si gaar ah waxaan bogaadin ugu dirayaa geesiyaasha ciidamada qaranka kala duwan ee had iyo habeen heeganka u ah adkeynta amniga iyo difaaca dalka hooyo mudanayaal iyo marwooyi midowgii dhex maray labadii dal ee Soomaaliya iyo Soomaaliya 1960kii wuxuu burburay 18 May 1991kii maanta waxaa laga joogaa 24 sano oo gow ah xilliga aynu dib ula soo noqonnay xornimadeennii ubadkii dhashay iyo kuwii ababay waqtiga ayaa maanta arrimanaya taasi waxay muujinaysaa sida uu qaanqari u taabagalay una tis qaaday maalintani waa maalin ku weyn qulubta shacbiga Somaliland ma aha mid ku timid dhayal iyo dheeldheel balse waxaa loo soo qubay dhiig badan oo waxaa u shahiiday kumiyaal geesi Allah u naxariisto jannada ka waraabiyo madaxbannaanida Somaliland waxaa go'aan madaxbannaanida Somaliland waxaana go'aan umadeed oo gorgortan aan lahayn waxqabadka xukuumadda 2010 ilaa 15
5 sano ka hor markii aan talada dalka qabtay waxaan la wareegay khasnad maran dayn gaaraysa $45 milyan oo $6,500 oo shaqaale dowladeed ah oo aan 4 bilood mushaar qaadan ciidamo aan sarkaalkoodu iyo subahigeeda toonna ayaan kala lahayn sumad iyo sawir toonna waxaan la wareegay wadooyin burbursan iyo kaabayaal dhaqaale oon la daryeelin waxaan la wareegay dalka oo intiisa badan lagu isticmaalo lacagtii diinbaarta Soomaaliya waxaan la wareegay idaacadda qaranka oo aan dhaafin 20 kilomitir guud ahaanba waxaan la wareegay qaran ku jiray duruuf qalafsan maanta shaki kuma jiro inaynu horumar muuqda la taaban karo aynu ku tallaabsanay ka gayoon maayo haddii aan midnad u dul joogsado oo ma soo koobi karayo waxqabadka ballaaran ee 5 sannadood inoo suurto galay haddiise aynu soo koobno waxaan jecelaynaa dhowr qodob idin taataabto ama aan saxiixo adkaynta nabadgelyadu waa shay asaasi ah oo muhiimad weyn u leh qarankan annagoo ka duulayna taa waxaanu xoogga saarnay dhismaha ciidamada kala duwan iyo hay-adaha amniga taya ahaan iyo tir ahaanba waxaanu ku guulaysanay 20 sano kadib inuu ciidamadeenu darajo kala yeesho ilaahay mahadii waxaa maanta aanu leenahay ciidan la isku hadlayn karo oo caabiyi kara cadow kasta oo ciidan soo hungureeya dhinaca kale waxaanu dadaal weyn u galnay xoojinta midnimada ummadda maamul fidinta deegaamada bari oo dibdhac ku jiray markii loo eego dalka intiisa kale waxaanu gaarsiinay qaybo badan oo ka mid ah adeegyada bulsho taasoo horseed u noqotay deganaansho iyo xasilooni waxaanu gogol nabadeed u fidinay cid kasta oo wax tabanaysay waxaanu taasi suurto gelisay mas-uuliin waaweyn oo aanu kala aragti duwanayn oo maanta ay ka mid yihiin madaxda dalka waxaanu aaminsannahay in dadaalka nabadeed iyo ee halkaa aynu ka sii wadno si aynu u dawayno tabashooyinka una gaadho isafgarad buuxa dhaqaalaha waxaad ogtihiin in xukuumaddani ka hor qaaday xukuumaddani kor u qaaday miisaaniyaddii dalka 4 laab intay ahayd markii xilka aan qabtay iyadoo aynan jirin wax cashuur oo la kordhiyey waxaa isbeddel weyni ku yimid noloshii shaqaalaha iyo ciidamada marka mushaharkooda iyo gunadooda kor loo qaaday waxaa la fuliyey mashaariic fara badan oo ay ka mid yihiin dhismayaasha waddooyinka muhiimka ah sida waddada ugu dheer dalka ee Cergaabo oo meel wanaagsan maraysa taasoo la og yahay inay dadka qaar riyo la ahayd waddada Dila Boorame oo qiimo weyn dalka ugu fadhida sidoo kale waddada Kalabayd Wajaale iyo Berbera Hargeysa oo iyana maanta aad ka warhaysaan hawsha laga qabtay gobollada bariga waxaa laga bedelay lacagtii hore haatanna waxaa lagu isticmaalaa shilinka Somaliland madaarada dalka wax weyn ayaa laga qabtay kuwaasoo maanta ay u dhammaystiran yihiin ammaan ahaan iyo adeeg ahaanba wixii heer caalami ah ee looga baahnaa sidoo kale dekedda Berbera oo kaalin weyn kaga jirta dhaqaalaha dalka ayaanu intii awoodayada ah wax ka kordhinay waxaanuna dadaal weyn ugu jiraa sida ay u noqon lahayd marso la tartanta deegaanaha mantaqadda dhammaan xarumaha wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda ayaa laga fuliyey dhismayaal casri ah oo bedelay dhismayaashii ay ku jireen kuwaasoo intooda badan ahaayeen kuwa ingiriiska laga dhaxlay 50 sano ka hor waxaanay haatan yihiin kuwo u qalma magaca ay xambaarsan yihiin iyo adeegga bulshada loogu hayo waxaa la kordhiyey tirada shaqaalaha oo la gaadhsiiyey in ka badan 20,000 waxaa kale oo suurto gashay inay dalkan yimaadaan oo ay ka howl bilaabaan shirkado caalamiya sida kuwa shidaal baadhista iyo macdamaha dhinaca kale arrimaha bulshada sida caafimaadka horumarinta dhallinyarada iyo qaybo kale oo badan ayaa horumar laga sameeyey tayada waxbarashada ayaa kor loo qaaday iyadoo oo asaasiga ah laga dhigay bilaash taasoo loogu danaynayo
dayarta iyo xaqa muwaadinka biyaha oo baahida koowaad ee dalkanu leeyahay waxaanu siinay muhiimad weyn waxaana la hirgeliyey qorista ceelal badan oo lagu baahi baxay waxaan awooday inuu dalku yeesho idaacad laga wada dhegaysan karo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa kaloo la sameeyey idaacad u gaara qur-aanka kariimka ah muddadii ay xukuumaddani jirtay waxaa meesha ka baxay khilaafaadkii u dhexayn jiray golayaasha dowladda taasina waxay suurto gelisay inay soo baxaan shuruuc iyo xeerar badan oo baahi loo qabay arrimaha doorashooyinka waxaa xoog badan saaray in doorashooyinku ay ku dhacaan xilligii loo asteeyey mana jiro waxaanu hakrannay haba yaraatee anaga iyo maamulkaygu toonna kuma faraxsani inay doorashooyinkii wakhtigoodii dib uga dhaceen mana jecli hadda iyo hore toonna turturooyinka ku yimaada nidaamka dimuqraadiyadda waxaase dhacda in marka lagu jiro howl adag ay soo bixi karto durufo wax ka beddeli kara qorshayaashii aad qoondaysatay howlaha doorashooyinku waa mas-uuliyad wadareed oo ay wadaagaan dhinacyo badan canaanta dib u dhaca waa mid la wada leeyahay waxaynu nahay qaran leh shuruuc iyo xeerar haga haddaba marka ay xaaladdan oo kale timaado dastuurka qaranka ayaa qeexaya jidka loo marayo guddida doorashooyinka qaranku waxa ay ii soo gudbiyeen 20 abril 2015 qoraal ay ku cadaynayaan inaan doorashadii xilligeedii ku qabsoomi karin anigoo ka duulaya saalada waxaan u gudbiyey golaha guurtida oo u xil saaran awoodda sharcina u leh qiimaynta xaaladdan ma jiro wax faragelina oo ku lahaa go'aamada ka soo baxay aqalka guurtida waana haad u madax bannaan xilgudashadeeda anigoo ah madaxweynihii qaranka madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta golaha wakiilada ma aanu ahayn kuwa maanta iyagu arrintaa ka talinayay ee waana loo talinayay si kastaba ha haatee waxaynu nahay dal iyo dowlad leh nidaam iyo kala dambayn muwaadiniin ahaan waxaa inagu waajiba inaynu u hoggaansanno isla markaana tixgelino shuruucda iyo xeerarka aynu dhigannay anigoo ah hoggaamiyihii qarankan si gaara waxaa ii saaran ilaalinta iyo dhaqangelinta shuruucda iyo dastuurka dalka u yaalla sidaa darteed go'aanka golaha guurtidu waa mid dastuuri ah waxaanan ku baaqnay kulan turxaan bixina oo aan isugu nimaadno 3 xisbiye qaran dhammaan dhinacyada arrintan khusayso muxaafid iyo mucaarad waxaan u soo jeedinayaa inaynu khilaafkeenna ku dhammaysanno wada hadal wada tashi iyo walaaltinimo waan soo dhawaynayaa waanan u mahad celinayaa madaxda xisbiyada mucaaradka ah aqbalka ay kaga jawaabeen martiqaadka ah waxaan ku kalsoonahay inaynu nahay bulsho bisil oo xaalad kasta oo ku timaada kaga gudubta wada tashi isdulqaadasho isqancin midnimo iyo wada jir haddaba waxaan kula dardaarmayaa mas-uuliyiinta qaranka ee madashan isugu imanaya inay mar walba danta guud ee qarankan ka hormariyaan wax kasta isla markaana ay maanta ammaanka ku hayaan ilaalinta qarannimada dhowrista shuruucda adkaynta nabadgelyada iyo midnimada ummadda ay matalaan mudanayaal iyo marwoy waxaan dhinacayga idin caddaynayaa inaan ka doorbidayo masiirka iyo maslaxadda guud ee ummaddan wax kasta oo gaar ah waxaan ahay axmedkii shalay 80 cod ee muranku ka jiro kaga tegay kursi madaxweynenimo anigoo tixgelinaya maslaxadda dalka xukun maroorsi iyo masab jacayl layguma yaqaan oo waxaan ahay hoggaamiyihii ka badbaadiyey somalilan 2 shir beeleed 1996 oo lagu kala dooran lahaa madaxweyne
laba madaxweyne xilligaa oo ahaa mid aad u adag Soomaaliland intaan ka jilicsanayd waxaan tudaale awgeed uga tanaasulay anigoo xisbigaygu 8 sannadood waan mucaarad ahayn waxaanuna aqbalay 3 muddo kordhineed oo saka isku haya caado iyo urfitoonna uma lihi inaan dabac kursi doon dalkaygu u dumiyo xaasha maanta aniga oo cimrigaa jooga layga biqi maayo inaan dibindaabiyeeyo dalkan iyo dadkan dimadeyda saaran sabarka iyo dulqaadku ma aha doqonnimo balse waxaan u aqaan sahayda siyaasiga suuban mar labaad ragga uu gurigu ka hayo inay dalkan madax ka noqdaan waxaan leeyahay war damciinna ku dara tudhaale iyo la jeclo oo waa la doogayay yaa la dacaroon beesha caalamka waxaan uga mahadnaqayaa taageerada dhinacyada kala duwan ee siiyaan Somaliland gaar ahaan gacanta ay ka geystaan arrimaha doorashooyinka iyo taabagelinta dimuqraadiyadda Somaliland waxay aaminsan tahay in xiriir wanaagsan iyo iskaashi xooggan ay la yeelato bulshada caalamka kaasoo ku dhisan isqadarin iyo danwadaag qaar ka mid ah wakiilada dawladda ay laga taageeraa doorashooyinka waxaa ka muuqda inuu gaadhay warar xaqiiqda ka fog kaasoo keenay inay walwal ka muujiyaan dib u dhaca yimid saaxiibadayo waxaanu xusuusinaynaa inaanu nahay ummad aan dhaqan iyo waayo aragnimo weyn u leedahay xakamaynta iyo xalhelidda khilaafyada siyaasiga ah waxaan shaki ku jirin in Somaliland hore ugu guuleysatay kana soo gudubtay dhibaatooyin iyo marxalado kala duwan marxalado culus dib u dhac doorashooyinka maanta taagan iyadoo aan cidna soo faragelin waxaan aaminsanahay inaanu turxaanta gudaha iyaga tagala ku filannahay iyadoo aanu sidii caadada noo ahayd wada hadal iyo isafgarasho wanaagsan aanu ku dhammaysan doono waxaa xusid mudan in beesha caalamka ka codsannay inayna dhexdhexaadiyaan annaga iyo walaalaya Soomaaliya hase yeeshee weli wax jawaaba oo wax ku oola kama aan helin haddaba waxaanu isku hay qabala sida ay dawladaha qaarkood ugu degdegayaan faragelinta arrimaha gudaha iyaga ah oo aanay ku filannahay iyo sida ay uga warwareegayaan ama isu digsiinayaan dhexdhexaadinta ismariwaaga ah ee ka aloosan dalka Soomaaliya iyo Soomaaliya taasoo xalihelideedu muhiimad weyn u leedahay xaqa ayakatashiga ummadayada iyo guud ahaanba xasiloonida mandaqada Geeska Afrika dalalka dariska ah sida mandaqada Geeska Afrika u noqoto mid xasiloon oo shucuubteedu nabad ku wada noolaadaan waxa xukuumadani ka go'aana inay sii xoojiso xiriirka iyo iskaashiga ay la leedahay dalalka jaarka ah waxaan ognahay in dhawaanahan la wado hindise ciidamo loogu dhisayo Soomaaliya kaasoo dalal ka mida beesha caalamku ku garab siinayaan madaxda Soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii Soomaaliya ee burburtay 1991 haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani horin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mandaqada Geeska Afrika sidaa darteed waxaanu bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si qoto dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidanka iyo hubka lagu soo daldalayo dalka Soomaaliya iyadoo ay Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ilaa hadda laga qaadin xakamayntii hubka ee guud ahaan la saaray dalka la isku odhan jiray Somali Republic Soomaaliland ha guuraysato insha Allah waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waa tahay kaasi waa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siinaayo oo ah khudbadii uu ka jeedinayay maanta 18 May magaalada Hargeysa oo sidii aad daawanayseen ba kaga hadlay arrimo fara badan oo la xiriira dhinaca Somaliland iyo dabcan xukuumaddiisa iyo waxqabadkii iyo sidoo kale siyaasadaha geeska Afrika iyo dabcan uu kaga hadlay caalamka ee xiriirka ay Somaliland la leedahay. barnaamijkan waxa barnaamij si toos ah idinka imanayay studio-ga dhexe ee Kelson TV magaalada London. barnaamijkan waxa idin soo gudbinayay anigoo Cabdullaahi Maxamed Cali iyadoo studio-ga farsamadiisana uu noo hagayay Maxamed Cadaawe. dhamaantayo bahda barnaamijkan isku soo dabariday iyo television Kelson TV waxaan leenahay aad baad u mahadsantiin. intaasaan ku soo koobaynaa hase ahaatee waxa naga xusuusina in aad ka daawan kartaan barnaamijyadan idin dhaafay kelsontv.com iyadoo aad heli doontaan warbixino kale oo la xiriira 18 May oo aanan soo wada qaadin goobihii lagu qabtay. waxaad leeyahay sidaas iyo sanad guuro wanaagsan dhammaantiin inta xusaysa 18 May.